gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Cali Cabdilaahi Daahir ayaa dalka Djibouti kaga qayb galay shirka 12aad ee baananka ku shaqeeya sistamka Islaamka oo dalka Djibouti ka furmay. gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa hab maamuus iyo meeqaam sare uga qayb galay shirkaasi baananka ku shaqeeya sistamka Islaamka ee ka furmay wadanka Djibouti. ugu horeyntii shirkaasi waxa furay gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Djibouti Axmed Cismaan isagoo kaga hadlay shirkani ahmiyadda uu leeyahay baananka ku shaqeeya sistamka Islaamka. sidoo kale waxa isaguna ka soo qayb galay oo ka hadlay ra'iisul wasaaraha wadanka Djibouti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed. markii shirkaasi la soo gabagabeeyay ayaa waxaa saxaafadda kala duwan la hadlay gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Cali Cabdilaahi Daahir. sidoo kale waxa isaguna saxaafadda la hadlay Cabdalla Riiraash oo ka socday banka Salaam African Bank ee xaruntiisu tahay wadanka Djibouti. adduunka maanta waynu ognahay Islamic finance-ku doorka uu ku leeyahay dhinac kasta markaad eegto xagga horumarka iyo xagga maalgelintaba. Somaliland waa dalka kaliya ee constitution-keeda Islamic bankiska uu loo golyahay aan confessionalka loo galeen. that means doorka imika laas 10 sano u dambeeyay oo ka qaatay aad iyo aad bay u muhiim tahay kobaca bangiyada, kobaca hay'adaha insurance-ka iyo kobaca microfinance-ka amba maalgelinta Islaamiga ah. door aad iyo aad u weyn baa ka muuqda. shirarka noocan oo kale hina waxa ku soo tarayaan sidii loo tayeyn lahaa, sidii loo kobcin lahaa, sidii hay'adaha loo dhisi lahaa amba loo caalamiyeyn lahaa. waayo maanta Islamic finance waynu ognahay doorka uu ku leeyahay caalamka. dhammaan bangiyada waaweynaya adduunka laftigoodu inay u soo jeesteen. marka annaga farxad gaar ah bay noo tahay abaalmarinta kuwa ugu sarsareeya ee la siiyo dadka wax ku soo biiriyay Islamic bankiga. maantana sharaf weyn bay u tahay Jamhuuriyadda Djibouti lagu qabto shirka iyo abaalmarinta. sakalana taasi waxay xoojinaysaa aragtidii madaxweynaha ee ahayd in ay Djibouti ay noqoto caasimadda Islamic bankiga ee Afrika. waayo Djibouti albaabkii Afrika ayaan naalnaa. marka taa iyadoo la xoojinayo waayo dhaqaale ma koro horumarna ma yimaado ilaa la helo maalgelin. marka maalgelintiina la xoojiyo bangiyada Islaamiga ee Djibouti ka shaqeeyana ay ka faa'iideystaan. Maxamed Jaamac Awaale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.